Bismillah, alxamdulilah rabbil caalamiin. Maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena 13aad ee ku saabsan pharmacology-ga. Maanta waxaan baranaynaa wax loo yaqaano anti-infectives. Anti-infectives oo loola jeedo antibiotics ama anti-infection drugs, daawooyinka loogu talagalay inay bacteriaska ama waxyaalaha parasites qaar ka mid ah ay dilaan ayaa la yidhahdaa anti-infectives ama antibiotics. Sidoo kale daawooyinka Soomaalida waxay tirahdaa qalajiyaasha. The beginning of modern medicine is generally related to events. Bilaashadii xilliyadii ay bilowdeen caafimaadkan hadda casriga ah ee adduunka horumaray waxa uu ku saleysnaa laba waxyaabood oo kale the proof by Pasteur that many diseases are caused by the microorganisms. Caddeyntii uu soo saaray ninka la dhihi jiray Louis Pasteur oo ahayd in cudurro fara badan ay sababeen waxyaalo microorganisms ee ilma aragta ah. The discover of effective anti-infective drugs iyo sidoo kale ikhtiraacii la soo saaray in daawooyinka anti-infectiveska ama antibioticska ay yihiin kuwo waxtar u leh in cudurro lagu daaweeyo ama kuwo waxtar leh inay yihiin oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan sulfonamides groupka la yidhahdo antibioticska oo la soo saaray 1938 iyo penicillins oo iyagana 1940 la soo saaray. Marka hadda caafimaadka jira adduunka ama xilliyadii uu bilowdaba wuxuu macnaha la xiriiray oo asaga uu xoog saarayay in la helo wax proof ah ama wax la soo ikhtiraacay oo leh practically oo la hubo. Intaas haddaan kaga gudubno some of the bacteria qaar ka mid ah bacteriada and other microorganisms iyo nooleyaasha kale have adapted to the anti-infective waxay la qabsadeen qaar ka mid ah daawooyinka qalajiyaasha ah and become resistant to certain antibiotics. qaar ka midana waxay ku noqdeen resistant kuwa iska caabin kara ay noqdeen oo macnaha iska celi kara qaar ka mid ah qalajiyaasha ama antibioticada. Most resistant strains kuwa ugu badan macnaha farcyada ugu badan ee resistantga sameeyana can be eradicated. taasoo ay tahay farcyada ugu badan ee bacteriada ee sameysa resistant sameysa daawooyinka iska celiya ayada lafteeda waa la cirib tiri karaa haddii la sameeyo new drug daawo cusub oo different antibiotics ama mid ka duwan kii hore antibiotic la siiyo ama la sameeyo antibiotic combinations laba antibiotic la isku daro ama saddex high dosage ama la siiyo cabirkii hore lagu yaqaanay mid ka badan. Marka bacteriada waxay sameysay resistance wax loo yaqaano awood ay u yeelatay inay daawadii la qabsatay iska celin karto. Marka daawadaas waa la bedeli karaa ama daawooyin cusub la siin karaa ama daawooyin la isku daray ama cabirkii intii hore looga badi karaa. intaas oo dhan waxay keeni karaan daawadaas in la cirib tiro oo laga saaro meesha bacteriadaas. Awareness of the problem has prompted ka warqabka macnaha somewhat greater security by the physicians. ka warqabka macnaha uu ka warqabo dhakhtarku when and how to prescribe antibiotics marka iyo sida uu daawada u qorayo kala inuu ka warqabo xoog saarayadan waxay kamid tahay waxyaalaha lagu cirtiri karo. Anti-infective drugs markaan ka hadlaynana can be divided waxaa loo qeybi karaa laba qaybood. Bacteriostatic nooc loo yaqaano maxay sameysaa marka bacteriostatic stop the multiplication of and further development of the infectious agent. waxay joojisaa bacteriostatics daawada nooc loo yaqaano nooc noqonayo bacteria inay badato multiplication ay keento and further development inay sii korto of the infection agent waxyaalihii noola ee sababaya infectionka inuu sii koro ama uu sii bato ayay joojinaysaa ma dilayso. Bactericidal ayaa jira iyadana eradicate ay sameysaa way goynaysaa way cirib tiraysaa killing all living microorganisms dhammaan wixii noola ahay cudurka sababaya ay dilaysaa. Marka labadaas qaabood ay u shaqeeyaan inay bacteriostatic tahay oo bacteriada ay joojiso badashadeeda iyo inay bactericidal tahay oo bacteriadii ay dilayso ama noolihii kale ay dilayso. Some anti-infectives ama antibiotics qaar ka mid ah daawooyinka anti-infectiveska ama antibiotics halt the growth waxay joojiyaan oo stopping ku sameeyaan koritaanka or eradicate ama cirib tiraan many different microorganisms noocyo kala duwan oo badan oo ka mid ah ilma aragtada. Attainment of broad spectrum antibiotics waxaana loo yaqaanaa noocaas broad spectrum antibiotics ayaa la yidhahdaa. Other effective only certain specific organism qaar kalena waxay saameyn ku yeeshaan ama ay daaweyn karaan oo kala amisan ay wax ka qabtaan qaar ka mid ah waxyaalahaas ilma aragtada ah. Ana attainment narrow spectrum antibiotics waxaana loo yaqaanaa narrow spectrum antibiotics macnaha way ka hooseeyaan. Some antibiotics qaar ka mid ah ama some anti-infective qaar ka mid ah elicit hypersensitivity waxay soo saaraan xasaasiyad in some persons dadka qaar ka mid ah
some penicillins waxaa kamid ah penicillin qaar kamid ah cause more severe waxay keenaan xasaasiyad fara badan frequent hypersensitive reactions than other drugs waxayna keeni karaan xasaasiyad soo laalaabatay in ka badan daawooyinka kale. Drug produced by microorganisms daawooyinka laga soo saaro microorganisms lafkooda antibiotics laga soo saaro oo other living organisms ama organisms kale laga soo saaro to kill other microorganisms si loogu dilo noole kale. daawada macnaha waxaa laga soo saaraa waxyaalo ilma aragta ah ayadoo loogu talagalay in lagu dilo ilma aragta kale ayada laftooda laga soo sameeyaa kuwo kale si loogu dilo. maalmahan dambe marka nowadays kan money are produced synthetically qaar kamid daawooyinka ama daawooyin fara badan synthetically sanacay ahaan loo soo saaraa waa lasoo warshadeeyaa waxyaalo chemicals la isku daro ayaa laga soo sameeyaa because of difference in susceptibility of infectious agent to anti-infectives sababtana waxay tahay macnaha inay u nugul yihiin waxyaalahan anti-infectionist agentiga inay u nugul yihiin waxyaalahaas way wax ka tari karaan. The sensitivity of the microorganisms marka sensitivity ahaanta ama nuglaashaha nugul yihiin waxyaalaha organismska to the drug order rate should be determined before treatment is initiated inta la bilaabin waa in macnaha la hubiyo oo la iska xaqiijiyo. Several sensitivity marka qaar kamid ah waxyaalaha sensitivity tan ayaa loo sameeyaa are commonly used for the purpose tusaale ahaan waxaa loo isticmaalaa ujeedada maxay tahay example culture and sensitivity ayaa loo isticmaalaa marka la rabo in la sameeyo. Certain anti-infectives qaar kamid ah anti-infectives ama antibiotics have market side effect waxay leeyihiin calaa wax loo yaqaan side effect oo in waxyeelo ay keenaan yar aan badnayn. Some are serious qaar kamid ah waa halis example waxaa kamid ah inay keenaan neurotoxicity oo qofka neerfiisa waxyeelo u geystaan nephrotoxicity inay keenaan nephronka ama keliyaha waxay u geystaan ama ototoxicity oo earka ama dhagaha inay dhibaato u geystaan. marka qaybteeni maantay ka hadlaysay antibioticda intaas ayay noogu egtahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.